بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد مركل ولا شيء زينب halkan naga daawanayso Zainab Tan Beauty meel walba joogtaan farxadii bashbashi caafimaad aan rajaynayna soo dhawaada maanta waa maalin cusub waa maalin axad ah waxaan igu talagalay inaan laga qayb qaato insha Allah wacyigelin iyo maaragtay dhiirigelin insha Allah biidnillaahi karim iyo faa'iido markaas aad faa'iideyso hadday ku soo marto iyo haddii maaragtay qof kale ku dhacdo soo caawin karto insha Allah biidnillaahi karim iyo wax yar oo macaan yarna maadaama aan u badanahay dadka cuntada kariya aan nahay marka iyadana wax yar oo macaan way ku jirtaa insha Allah biidnillaahi karim video-ga waxaan rajaynayaa in uu wax un ka faa'iidaan oo wax la'aan aad ka bixin meesha insha Allah biidnillaahi karim haddii ugu xiran tahay oo markan nagu soo biirtay ama maanta aad daawanayso nagu soo biiraysan waxaan ku leenahay welcome to my channel inaad maaragtay la support gelisid oo maaragtay na dhiirigelisid oo dee maaragtay waxaad maaragtay aad awoodo oo like iyo share iyo dhiirigelin comment ku soo qortid insha Allah waan ka rajaynaynaa inta horena la sii joog jirteen xalayna hadii sidaas si lamidba oo aniga rajaynaa insha Allah biidnillaahi karim maanta waxaan igu talagalay mission 5 sano iyo wax ka kore aan haystay baa hal mar maaragtay biyo istaajisay cidladan waxay ka socotaa dhanka oo maaragtay beebka iyo biyaha maaragtay mishinta biyaha keenayso iyo beebka ku jiro baa marka qarxay ama jabay ka bacdina wuxuu u baahan yahay ama tuur ama maaragtay hayso sida maaragtay 5 sano garantiga wuxuu ahay 5 sano kadib ma soo celin kartid waaye hagaajiska imaado qof fundi oo Soomaali ma helaysid ku hagaajinay Soomaalina ma joogto qorbaa joogta bal maxaa sameynayso aashu wata mishintina waa gudaha ka nadiif waa cusub saa maaragtay u dayactir marka dayactirka baa maaragtay aan sameynayna insha Allah biidnillaahi karim qorbaa joogta qof Soomaali oo fundi ma haysid adiga naftirka fundi ma tihid maxaa sameeyay lahayd dadka oo wadanka u dhashay hadaa aadina ugu yaraan qofkii fundiga aad isleedahay maanta wax buu ku sameeyna 2000 ama 1500 ki ugu yaraan 1500 kii kale $250 $200 $300 lagu sameynaya ma awoodin maxaa sameynaya marka wax yar oo basiid ah oo maxaan ku dhahay fudud intaas laga qaadana maanta waxaan ku tusayaa sida adiga isku maarayni lahayd oo waxa uga badbaadi lahayd insha Allah biidnillaahi karim supporting waa dhankiina insha Allah biidnillaahi karim sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawasho wacan oo wanaagsan insha Allah ما شاء الله تبارك الله اسكو soo noqo dambo xiisan asxaabteeda sharafta leh boxkan waxa ku jira beebki aan soo iibiyay oo maaragtay mishinta mid qaraxday uga bedeli lahay waxa inay tusaaya koow sida ku ogaan karto in mishinta wax ka qaldameen sidan waay maaragtay charger kan galiyay ka bacdina ma shaqeynayso haday shaqeynaynin dhanka biyaha ay ka shaqeynaynin ma ahane korontada ma aha korontada waa diyaar waa arki inay daarmayso laakiin markii lagu dhaqayo oo mishinta oo dharka la galiyo bay istaagaysaa wax biyo ma keenayso giig la iska dhahaysa marka dhibaatada meesha ka jirto waa mishinta biyaha keenayso ayaa beebkeeda qarxay ama jabay marka haduu jabay maxaa lagu sameyn karaa inta waa biyaha meesha wasaqo ka shubaysay oo biyaha maaragtay ay ka markay soo nadiifiso halkaas bay ka shubtaa dhinacaasna waxa way meesha biyaha ay ku shumaan ka bacdina waa kana mishinta muddo 5 sano jajaba haystay marka garantiga 5 sano ayaa ku qoran sidaas awgeed ma geeni kari halkii loogu talagalay oo liiga soo bedeli lahay ma geeni kari marka dantaada ama tuur ay ku dhahayaan ama maaragtay haysadeed aday ku taala hagaajiso marka waa ta halkay ka qaraxday oo ka furka halkaas ku haray beebkina uu soo dhacay marka beebki soo dhacay ayaa maaragtay dhibaatadaas ii keenay kadibna waa kana waxaan soo iibiyay magaciisa aan qoray ama waan sabiray kadibna maxaan tagay kabti lagu gadaayay waan weydiiyay xaan mishinta waa iga qaraxday garantigiina waa iga dhamaaday maxaan sameeyay waa sameeysan kartaa idhe aniga ma garanay fundi raadso oo lagu sameeyo camal ka bacdina aniyo maaragtay aan iska leeyahay fundigina ma aadi kartin xaa sameysatalo baa maaragtay
dumar kale way caawinaysaa isna cadaanba weydiiyey oo halka maraysay aan weydiiyey waxaan dhahay mishintan baa iga qaraxday meel lagu iibiyo aniga mid cusub aan raadinaya meel lagu iibiyo tan intana waa qaali meel lagu iibiyo sheeg xeelada mishinta intay ka halawday kabacdin xeelada adaaba hagaajisan kartaa gurigaada maxaa ku kalifay inaa mid cusuban soo gadid iyo qarashka hadda hore maxaa sameeyaa waxay dhahday boxkan gado guriga tag waxay dhahday sidaasaa loo sameeya adiga waa iisoo sharaxday sharaxaadka ii sharaxday baan hadda nii sameynaya insha allah hadda waa kana mishinta meeshan ka furaa lii dhahay halkaasaan ka furay waa kaasaa wajeeda waa ka bixiyey halkay ka qaraxday iyo dhinaci kale waa kasoo bixiyey waatana caagii dhammaan waa tirtirayaa lay dhahay biyihii kasoo daataan waa nadiifini qalaalaad ka dhigeen soo maahan markaa qalaal ka dhigta caagii waa kala tuuray kadibna halkaas ayaa ka gelinay dhankaas dhamaba taabanay sida lay dhahay inta ayaa taabanay waa kana caaga furfuraya hadda waxaa lay dhahay dhinacan uu ka qolocsan yahay waxaad gelinaysaa mishinta gudaha u gelinaysaa dhanka kale oo toosanna mishinta oo biyaha keenaysa afka ka gelinaysaa waa fahantaa umalayna dhanka qaloocan waxaa lagu xirayaa derbiga mishinta oo dharka dhaqe derbigeeda lagu xiraa kuuska yar oo soo jeedo ayaa lagu xirayaa dhanka kale oo fidsanna ama ma aan qaloocsanayn waxaa lagu xirayaa mishinta waatana la socda mishinta biyaha keenaysaa lagu xirayaa gambar lay soo qaatee waa kanahe maasha allah tabaarakallah wadaa ku guuleysanay waa arkayna hadda ku guul daraysanana waa arkayna insha allah waa kana marka afkaada ku ceelina guntaada kuma gabtay afkaada ku ceelin ma fahantay marka haddii markiiba aan nimankii taladooda qaadan lahay mid cusub aan soo raadin lahay ama aan soo densan lahay dhibay igu ahaan lahay mideediinoo la sameyni karo marka islaantaas aan weydiiyey ilaahay soo hanuuniye baa maaragtay aan ka faa'iiday marka faa'iidada dadka waa laga faa'iidaa wax umaad ka faa'iiday iska weydi wax weydiska ceeb ma ahan ma fahantay dadka hadda ka xishoon wax weydiska aad ka xishoon ceeb ma ahan waad ku faa'iidaysaa ku dhaca ma fahantay waa kaasa hadda mishintii intaan ku xiray waa adeeg marka marada waxa ugu qabsaday dhinaca kale adeeg waa dhinacana dhaamaa oo jilacsan dhanka kale waa adeeg marka sidana u hagaajinay kabacdi waa ka caagi waa lagaa maarmeelay saaxiib intii aan kuugu soo dhaqdan maraali ahaa yaa waan tuureen ku dhahay waa kaad mishintu way ku xirmatee ma sax baahe waan tijaabinaynaa insha allah dhar baan ku guraaya inay dhaqayso si sax u dhaqayso baan tijaabinaynaa insha allah saabuuni wax baan ku shubaaya hadda waan soo jiida booskeedan kusoo celiyey korontadii gelinaya kadibna waan fiirinaya inay shaqaynayso horaanba korontada bay shaqaynayso waa ogaay laakiin inay wareegsanayso gudaheeda waa kana nadiif waa cusub aad u malaynaysaa laakiin 5 sano jajabaa la haystaa waxaas waa iska maartay wala dayactiraya waa kana mishinta matuuri kartay 5 sano ay dhaafto ma jeedaa 5 sano garantiya ku qoran 5 sano day dhaafta xasameynay waa tuuray ku dhahayaan ayaga xaaw tuuray aniga waa sameeynayna insha Allah waa kana saabuuntii inta ku shubaay insha Allah dhar baan gelin rabaa oo bustayaal ah bustayaashaas culeyska badan haday dhaqdo macnaha way fiican tahay oo biyo badan ay soo shubto marka hadda saabuun oo mada ku shubaya dhanka kalena carfisaan ku shubaya kadibna waa shaqeynaysan fiirinayna marka si u shaqeynayso daqiiqada u qabanayna fiirinayna 49 minute aan u geenaya laakiin 49 minute oo dhammo wala dhameysanayna videoga nagu dheeraanaya laakiin muhiimadda waxa ay inay biyo keeni oo saabuunta isku shubayso oo dhaqayso aan fiirinayna muhiimadda intaas kale waaye marka tan oo kale inay ku soo marto ama ay saaxiibadaada ku dhacdo oo ka caabiso oo marka sida ajir ku heshaa laga yaabaa faa'iideysi waxaan kuu soo bandhigaa insha Allah hadda waa kana sida way ku shaqeynaysaa laakiin biyihii xirmeen waa kana xangeena 49 minute check waan daarayaa meesha xangeenayaa oo aad u qalajinaysay aan ku dhafanayaa dhanka kale waxaan ku dhafanayaa meesha oo baasbaaska camal ah ku sawiran dhag waan daaray hadda waan daaray waxaan sugayaa inay ay maaragtay wareegsanayso ila maxaan geliyay bustayaal culus waxaan fiirinayaa inay aad u dhaqi karto ama biyo badan keeni karto insha Allah bidnillah kariim sideeda hore inay ku soo laabataan fiirinayaa marka insha Allah la socdo waa kana bal waxaan fiirinaynaa inay maaragtay dhaqayso hadda way kacday ma sha Allah bismillaah tabarakallah way kacdaan ku dhahay hadda way kacday waatna ayaa isbuuc dhan way fadhidaan ku dhahay isbuuc dhan loo fikirayo la lahay talo mala tuura may mas'aleela isbuuc dhan dhar lagu ma dhaqanin isbuuc kadib way hadda marka insha Allah biinilal kariim waa kaasa
la socod wanaagsan way dhaqaysaa hadda waatana wax kama qaldan saabuuntii kusoo shubaysaa hadda biyo badan kusoo shubtay saabuunta ka hadda waxaa ka jarmatay dadaw waaye hadda 8-9 minute kasii jarmatay way dhaqaysaa saabuuntii kusoo shubtay maasha Allah tabaarak Allah insha Allah waxaan gudagelaynaa hadda tan diyaar waaye inaka faa'iideena waan jecelahay hadda waxaan gudagelaynaa wax yar oo macmacaane abaayirisi maanta waxay dhadhan wax yar oo macaan sameynaya channelkeena soo dhaweeya maskiin yariisto waatana aan ku dhahay maxaa dhad wax baan baranaya waxa ani ku baraya leedahay waxa baan baranaya ma waxba adi ku baraya ana li baraya xalay banana movies waxa dhan ku baraynaa anaga sameynayna marka waa ka maadaama ay xatahay waxaan la sameynaa inta xal dheeb biskuda ku jiro nool sharxaya inta la waxba moosa haysana ukuna laba xaba halka ka soo baxsanayna inta xal soo kulay badar ama maar subag aan soo kulay laba qaada aan sokor xag ku jirta wax yar laga isticmaal rabaa baking powder iyo maarta qorfaa shiidan creamka oo yulbe strawberry ah cacao ya inta xalka lagu haystaa buugaas laga fiirsan rabaa ya buugaas maanta wax laga sameyn rabaa buugan iskuulkaan la soo siiyay wax soo bartaana la dhahay marka waxa aniga ku falaadayna la maanta tan youtube-ka la gelinaa iya wakala waxa ukunta la sheegay wata halkaas ku qoran sokorta 50 gram waa la laakiin hal qaadaan ku darsanay maadaama wax kale aan ku sii darsan rabnay dheen oo anaga jecelnahay waa kan hadda mooski waa kala aruursanaya maasha Allah tabaarak Allah ala badan aan albarra maanta qatar zaana ku dhaay maasha Allah tabaarak Allah markii soo dhawaada labada xabo mooski xagga ay noo mad codkeedan ka tiray maro ina soo galay laakiin ana ni sharxaya maadaama ana liisha sharxay laba xabo moos ah 5 xabo biskuitka caadiga bila sokorta ah oo marka qamadiida laga sameeyay oo dadka maaragtay freega sokorta ah kadibna maaragtay subagiya lagu soo daray waa 5 xabo oo maaragtay 5 xabo oo biskuitka sokorta lahayn iyo waxa lagu soo daray hal qaado oo baking powder ku daraysa hadda 2 xabo oo waxa lagu soo daray kale oo moos ah intaas hadda ku jirta waxa lagu soo daray hal qaado in dhan adi oo maaragtay hal qaado oo kooda iyo hal qaado oo maaragtay kaneelka ah ama maaragtay qorfaa shiidan ah aan soo daray waakaas hadda burka waxa lagu soo daray 6 qaado macnaheedu way soo xisaabeen 6 qaado buura lagu soo daray 2 xabo ukuna lagu jibinaya hadda maasha Allah tabaarak Allah 2 xabo ukuna lagu jibinaya ukunta si la yeelay arag ade baba way ka fakatay ay ukunta salaayay aad 2 xabo ukuna lagu diraya wax kale lagu madaray la shiidayo waatana waa ujeedina umalay qatarzaana aan ku dhahay waxay noqonaysaa chocolate cake ay noqonaysaa ku dhahay inaba caadi ahaan oo dhadhankeeda waxaan ku dhahay moos ka soo dhadhamaayo caraf aan ku dhahay iyo qorfo shiidnaa ku jiraay carafteeda waxaan ku dhahay saamaka u karayso waa yaabaysa hadda xalay saxantan saliida la soo mariyay كان بعدين waa kasoo lagu soo shubay waa taasa wixii ka dambe ana caawinaya insha Allah maadaama ay dab iyo wax laga gelinaya inta ka dambe ana caawinaa intan ayaga na caawiyeen oo way na bareen ma sha Allah hadda kareemkan ala qasaya kareemkan waa kareemkii strawberry-ga oo guduudka ala qasaya insha Allah waxa lagu daray laba bac oo yar adiga dadaw qaado caana ah wana qaada loo soo xisaab wax walbo kadibna waa la shiidaya waa tana kadibna wixii ka dambe ana caawinaya marka oo fornadii iyo wixii way moogtahay ana caawinaya gubinayaan marka waatan hadda noola baashaale xaddi wanaagsanayna dhaheen anagana waa ka gudoona inay waxa rajeynaa balyada bal maanta ina sus loogu soo daadiyo insha Allah binilal kariimada ka faa'iidina like iyo share comment waa kan hadda oven ku galay waa kan saan ku soo baxay waa soo karay kadib aan tijaabinaynaa maanta kamarada dhankooda waaye waa nagu boosiina arkiisaan كبع حسميننا قرية كدرينا وفيرنا إنه كرتي وحكلا نصي لمنا كل 10 بدنا ما تبرنينا كبعدين وقتنا قرية السيدة نقصوب بحي ما شاء الله على بتبرونه يسكب بدشي بحال وقر شبي أمر اللي يصير جالسي وكنا صانع السمية وقالوا وش الشبي إن على قبل سينتاس أما ماركتاي ليمون تاس أو قرارك على وقر شبي ما دام أي مار كريم معان لما نروا حال هاي سال الربع أنا واحد شلي عارمنا واحد أذا مرمنا له كدب سيدنا على سمينا هاد أنا عامنايا كدبنا علابتي هدايتي معناها وحي لقى السمية لو شرحها يابو قرى لقى صوص ساري والوريجنا هي مانتا
anaga waxaana la wareejinay anaga jikada maanta anaga malihin waa kana saana laga soo dhigay inna caadi ma ahan qatar waan mahadsantihiin jazakallah khayran dhahnay inayna saas dhaha alaab qatar oo shidanayna barinbo oo wala maaragtay sunt ah ama wala healthy ah inna caadi ahayn waa ku kaas marka insha Allah binil kareem waxay inay rajaynayaa in comment badan ka soo bixin doontiin waxaan rajaynayaa like inuu kor qaad doontiin share gareyn doontiin sidaas iyo nabadgelyo inta video cusub isku kulmayna fi amaanillah assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh shanta goor ilaahay salaadu la shid marin wuxuu noogu shaaciyay sharuud weeye qaaliya shiiquba wuxuu ubad shaqalada quraankiyo shaafici u barayaa in shafeeca aqiro shidli ila siiya